ciyaaryahanada gool Buuhoodle Mr Jamal isaga ayaa wata saaxiibka ayuu dhibay iyaga wata iyaga afka hore gool Allah wali iyaga wata gool Allah way agmartay kubadda ay soo dhisay ciyaaryahanada gobolka Buuhoodle ayay weerar culus ku soo qaaday ciyaaryahanada gobolka Hawd balse kubaddaasi ma ay dhalin waa dhinac martay afka hore ayaa dhigay lambarka 7 ee gobolka Hawd Masar Cilmi ayaa wata waa laga soo difaacay difaaca gobolka Buuhoodle ayaa bartamaha garoonka soo dhigay balse wali waxa wata ciyaaryahanada gobolkaasi Hawd Buuhoodle ayaa wata iyaga ayaa isku dhibay iyaga ayaa ninka lambarka 6 ee gobolkaasi Hawd ayaa kubadda wata isaga saaxiibka ayuu dhibay lambarka 12 ee gobolka Hawd ayaa kubad cross laagay madax ayuu ka saaray difaaca gobolkaasi Buuhoodle wad moodo inay taxadirayaan isla markaana iska ilaalinaya in shabaqooda ay gasho weerarka wali waxa wata ciyaaryahanada gobolka Hawd kubad xooggan waxa waray wata soo laagay balse difaaca gobolkaasi Buuhoodle ayaa kubaddaasi qabtay wali iyaga maamulaya iyaga isku dhiibanaya gobolka Hawd bartamaha gool Allah diilinta 8aad ee goolka gobolkaasi Buuhoodle ayaa uu ku dhacay ciyaaryahan ka tirsan ciyaaryahanada gobolkaasi Hawd garsooraha dhexe ee ciyaartan isagoo haya Cabdicasiis Cali Dheere ayaa isagu markaasi ka garnaqaya in ay noqoto kubaddaasi inay noqoto mid goolgolaaga oo rigoora iyo inay noqoto mid markaas dilinta 8aad ka baxsan in ay noqoto kubaddaasi inay noqoto mid oo mid walba uu kooxdiisa uu taageerayo kubaddii waa la soo laagay waxay ku baxday dhinaca gobolkaasi Buuhoodle daafaca gobolka Buuhoodle ayaa isagu soo qabtay كتبت امين حرسي امين عرتيجا اما اللي بعرتيجا حتور وصرقي الكود عبد العزيز شو هذا جول با حلقة بالكودة عرتيجا عبد العزيز وسع غبتي دم كلك هل يبرا هل حكم الكودة إيفربول حالت كلمة قلي جروكا هركيز استاديوم حكم الكودة تغيير الفرص بموقع عيرتيجا عبد العزيز هركيز استاديوم عبد العزيز عيارات برد الصومالي الان قبل ذا قبل كبوه لا يكون بدأ ستة واولا يكون بدأ سلاكنر جول عياريانada gobolka Buuhoodle waxay heleen goolkii barbaraha ciyaaryahanada gobolka Buuhoodle waxay heleen goolkii barbaraha ciyaartu haatan waa hal gool iyo hal gool kubad laga laagay dhilinta 8aad ee goolka gobolka Hawd qalad ay galeen difaaciyahanada gobolka Hawd ayay ku ciqaabeen waryahanada gobolka Buuhoodle laag xora ama free kick aad u qurux badan ayay dhaliyeen